dilalka ku dhufo oo ka dhaqaaqda ah iyo weerarada beegsiga ah ayaa ka bilowday deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose iyadoo walaac xoogan ay muujinayaan dadka shacabka ah iyo cabsi ku aadan weeraradaasi beegsiga ah ee halkaasi ka bilowday. Wararka ka imaanaya degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ku waramaya koox hubeysan in ay weerar ka geysteen gudaha degmadaasi isla markaana ay ku dileen ilaa 3 askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka ee maamulkaasi amaba degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose sidoo kalena ay ku dhaawaceen 2 qof oo mid askari uu ahaa midna uu ahaa qof shacab ah oo ku sugnaa goobta. Waxaa la sheegay askartan iyo dadkan shacabka ah in ay ku sugnaayeen maqaayad ku taala suuqa xoolaha ee degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose halkaasi oo la sheegay in ay rasaas ooda kaga qaadeen dableydan hubeysan kadibna ay goobta isaga baxsadeen. Rasaastaasi ayaana sababtay geerida 3 askari 2 qof kalena inay halkaasi ku dhaawacmaan oo midna haweeney ay tahay midna uu yahay askari kale. Kooxda ayaa la sheegay in ay goobta isaga baxsadeen markii ay falka geysteen. ila dadka deegaanka ah oo ku sugnaa goobta falka uu ka dhacay oo telefishinka Himilo la hadlay waxa ay sheegeen in kooxda ay wadatay gaari nooca raaxada ah markii falka ay geysteen isla markaana goobta ay isaga baxsadeen. ilaa iyo hadda lama oga waxay ahaayeen ciidamada ammaanka ama walaamaha amniga ee degmadaasi ayaa isla markiiba waxay bilaabeen howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka degmadaasi isla markaana lagu baadigoobayo dableyda hubeysan ee weerarka halkaasi ka geysatay isla markaana dilalka geysatay goobtana isaga baxsatay. ilaa iyo hadda laamaha ammaanka ma xaqiijinin sababta rasmiga ah ee ka dambeysay dilka askartan iyo dableyda nooca ay ahaayeen, laakiin bilooyinkii la soo dhaafay waxaa degmadaasi Afmadow iyo deegaanada ku hareereysan ka soconayay dilalka tooska ah oo ay geysanayaan dableyda oo aan heebtooda la garanaynin. dadka shacabka ah ayaa cabsi xoogan waxay ka muujinayaan dilalkan soo cusboonaaday oo kooxda ay geysanayso isla markaana goobta ay ka baxsanayso, waxaana ilaa iyo hadda laamaha ammaanka aysan xaqiijinin amniga deegaanada gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan degmada Afmadow oo ay ka soo cusboonaatay dhacdooyinkan lagu beegsanayo dadka shacabka ah iyo askarta. wixii war ee ka soo kordha barnaamijyada wararkeena dambe ayaan kula wadaagi doonaa.